halka waxaa fadhiya oo shir ku qaatay labada beelood ee gobolka Awdal waxgaradka beesha Samaroon iyo waxgaradka beesha Ciise waxay xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ay shir kula qaateen wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya wasiir Fiqi waxayna ka wada hadleen xaaladda Awdal ka jirta waxayna isla qaateen go'aamo masayri ah ayagoo guurtida labada beelood metelaysa ee beesha Samaroon iyo beesha Ciise iyo dowladda federaalka oo uu metelayo wasiir Fiqi ay isku afkarteen in si midaysan dowladda federaalka iyo shacbiga Awdal ay uga hor yimaadaan garabka isa saaraan wada tashadaan wadankooda wada difaacdaan in mowqif adag laga qaato waxa ka soo kordhay gobolka Awdal dadweynaha reer Awdalna waxay haydaan meel kastoo joogan waxa loo sheegaya ama lagu amraya inay dareen qaataan hawshaana maxay haydaan dhibaatada ku soo kordhayna ay ka hortagaan labada beelood waxay ka tashanayaan oo ay aad uga tashadeen arrimaha ku soo kordhay gobolkoodii Awdal waxaana isla afkartay wax badan oo muhiim ah iyo sidii dareenka ummadda Soomaaliyeed isku agtaagi lahaa shirkan wuxuu ku soo gabagaboobay afgarad iyo in la difaaco gobolka dadka gobolka waxa la farayaa in ay kacaan oo ay difaacdaan sharaftooda diintooda dalkooda badooda iyo ciidooda in ay difaacdaan annagoo ah beelweynta Ciise iyo beelweynta Gadabuursi waxa weey kana soo horjeedna inaan dalkayga xoreysano waxaanan ma garanaysaa mowqif lanahay shacabka gobolada ka soo jeeda Somaliland haday Hargeysa joogan haday Burco joogan haday Boorama joogan haday Xariirad joogan haday Boon joogan haday Lugayo joogan waxaan leenahay in la dareen baan nahay waxa weeye ogolaan mayno in dalkeena la iibiyo musabbixina iibiyo ogolaan mayno waana ka dagaalamayna waxaan soo dhaweynayaa wasiirka gaashaandhiga Somaliland ee iska casilay meesha waxaan leeyahay madaxweyne ku-xigeenka iyo ragga meesha joogay wasiirada ah kuwa ma garanaysa baarlamaanka haday xagga sare joogan iyo haday deegaanka joogaanba war magaciin baa iniga nool ayaa dhulkiini laynagu dul iibiyay iskaga tagaan leh meesha qof Soomaaliya horta ogol in dhul Soomaaliyeed hadda dib loo qaato ma jiro maanta waxay diyaar u yihiin inay dagaalamaan anagoo reer Awdal ah ilaahay inuu garab galaya Soomaaliya waxaan leenahay waxaan noolaato innagana ilaahay maxay ama aan hawsha iyo wax qabnaa nala qabto